موضوع عن مدرسة كلها هي وحلا هذا دور كاي سوغانتو كل هاي هناشدة إياها جدا وعي قبل شدة وعي قبل شدو محاكرة هي مركلو يجو كالنتا ما دور كاي سوغانتو كلها هاي وعيهان برشدو وحلا هذا واسدة أي وحو عاركيسو سأي وفكريسو هفكر كايو مدلة هاي أقونات garasho isay shay u qiimaysa si aragga bulshada si arag baa la dhahaa ama say wax u arkayso ayaa la bedelayo wacyiga halka laga koraayo waa halkaas marka bal waxaan is weydiin doonaa suugaanay maxaa tahay marka hore waxa kale oo is weydiin doonaa sida garanaysa qeybay suugaantu leedahay qeybahay suugaantu u qaybsato waa yar dul mari doona saa igu soo dhawaataan oo isla soo durugno meel aan isugu nimaadno waxa kale oo eegi doonaa waxa loo yaqaano oo qodobkeena caawa aynu halkan u fadhinaa oo ah doorka maansada iyo doorka aan idhaahdee suugaanta guud ahaanba maansada waa qayb ka mid ah suugaanta ereyga suugaan Soomaalidu waxay yiraahdaan waa erey dhaqameed asala waa asiliya oo ah ereyada Soomaalidu ama afkuriyada waxa jira ilaa 5 nooc oo afkuri oo ardayda dugsiyada sare soo dhigatay buugiina dugsiga sare waa ku aragtay ma filaya meelaha marka la micnaynay asal ahaan ereygaas waxa lagu sheegaa inuu ka yimi dhowr afkuri oo meelaha qaar wuxuu ku noqdaa geedaha cusubka ayaa loo yaqaanaa suugaan meelaha qaar afkuri ahaan saxan-saxada roobka loo yaqaanaa meelaha qaar ciidda loo yaqaanaa soo kale waxa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo hadalka kiisa gunuuska waa hadalka aan la fahmi karin intaasiba suugaani hadal maaha waa la yiraahdo intaasi waxay kamid yihiin ereyada asalka ah ama meel ka soo jeedka ereygan waa la aqoomeeyay aqoomeynta waxa jira afku uu aqoomooba oo waa la aqoomeeyaa af kasto dunida jira uma dhalanin inuu aqoon xambaari karo laakiin dadkiisa waxay u sameeyaan inuu qaadi karo aqoon iyaga oo tarmiya erey bixin u sameeya saadiradeed afku ereyada ay aqoonta dunida ku taalo markay ay soo gaadhay xilliga erey bixinta af Soomaaliga la qoray 17kii maaragtay la hirgeliyay qoraalkiisa waxa lagu tabaqay ama waxa lagu erey bixiyay ereyga loo yaqaan literature Englishda ayaa loo qaatay ereyga suugaan af Soomaali ahaan hadaynu micnayno waa xardhida hogagelinta hadalka suugaani waa labeen waa qurux waa inta ugu qurxoon hadalka markaynu qorayna xasan burca ka sheekeynayay dadku waxay u hadlaan ama inta badan waxaanu wax u qornaa saynu u hadallo iyo sida wax loo qoraalo way kala duwan yihiin dunida qolada Ingiriis waxa la yiraahdaa written language iyo spoken language baa la yiraahdaa afka lagu hadlo iyo afka la qoraa way kala duwan yihiin meel ku qorta qofka isla wax qoray afka ku hadlayo qorayo waxba kuma bilowna waxa jirta xirfad qoraal la yiraahdo si wax loo qoro baa jirta suugaani hadaba waa qoraalka iyo qurxinta iyo farshaxanka iyo hogagelinta hadalka iyo soo kale waxa weeyaan xardhida humaageynta afka taas oo hadalka dhawaaqiisa miisaanta dhadhankiisa malabaysa dhihitaankiisa macaanaysa dhigaalkiisana muunaysa kaasa la yiraahdaa markuu dhigaalka uu ku muunoobo ereygaga dhagtiisu jeclaato maqalkiisa ishaadu akhriskiisa jamato ayaa waxa la yiraahdaa waa suugaantu waa taas cali ileeye nin la yiraahdo abwaan iyo qoraal Soomaaliyeed baa isaguna inoo micnaynaya taa hore sidaan idhi weeyaan isaguna wuxuu leeyahay suugaantu waa hadalka kiisa dhisme dhadhan dheelitir dhisme dhadhan iyo dheelitir ahaanba aboon
ee ay dhagtu jabato dhagaysigiisa ishuna ay dhugato akhriskiisa kashuna ay dhuuxdo duxdiisa kaasaa la yiraahdaa suugaan mar kale aqoonyahanka Soomaalidu ereyga suugaan waxay ku micneeyaan iidaanka ama koosaarka afka ama hadalka koosaar ama iidaan marka la sheegayo waa inta aan sare ku soo sheegay quruxda oo is heshay oo jaanta iyo jiibta isla heshay ayaa la yiraahdaa suugaan suugaantu door nooceebe hadaba leedahay ummadaha dunida oo dhan suugaantu waxay ugu jirtaa door aad u weyn qoladan reer Yurub ama waxa jirta imika waxa lagu jira xilliga la yiraahdo the era of science iyo technology xilliga science iyo technology laakiin xilli ka horeysay baa jirtay ilaa imika oo la joogana door aad u weyn bay leedahay suugaantu xilliga hore waxa la yiraahdaa xilli baa jirtay reer Yurub ay gebigoodba isugu baxeen inay qoraan sheekadan la yiraahdo sheeko faneedu hadeerta waxaan arkay saaxiibkii Xasan oo lahaa waxba sheeko faneed ha qorina laakiin sheeko faneedu alu kala aragti duwan yahay runtii waxaan qabaa in sheeko faneedu ka mid tahay meelaha wacyiga bulshada lagu koriyo akhriskooda lagu koriyo qalinkoodana lagu koriyo wacyigooda waa lagu koriyaa akhriskoodana waa lagu koriyaa qalinkoodana waa lagu koriyaa waa meesha oo arki doonaa waa aragnimada nolosha lagu wadaago sheeko faneedu waa aragnimada nolosha waa meesha lagu wadaago waa arki doonaa laakiin doorka suugaanta waxa kamida carbinta kasmada hadda eega doorka suugaanta ugu weyn ee waxa kamida in la carbiyo kasmada iyo garaadka in la carbiyo soo kale in la kobciyo garaadka akhristaha in la kobciyo ayaa kamida waxaan dheefsiisaa in qofka akhristaay suugaanta waliba qaybaha meelahan oo kale riwaayadaha waa la qoraa inagu sheekayn jiray waagi riwaayadaha aynu naqaanay ama aynu riwaayadihii matalaynay oo riwaayadaha iyo taariikhda waa arki doonaa laakiin halka ay sartu ka quruntay waxa weeye marka qalin la qorayo ama sheeko faneed la qorayo waxa la qoraa waxa loo yaqaano dhacdooyinka maalinlaha ah ee qof bila aadan dareemo ama xaaladda dalka jirta ama dhacdooyinka maalinlaha baa la qoraa marka waa dhacdooyinka maalinlaha iyo go'aanada uga fakaro qofku uga fakaro hab ku salaysan waaya aragnimo waxa kale oo kamid ah ilaalinta afka dhaqanka habnooleedka jiilasha kala duwan ee bulshooyinka kala dambeeya tusaale ahaan marka caawa riwaayad la sameeyo riwaayadaha inagu siyaabo kala duwan baynu u fahanay oo dad baa riwaayadda waxay u fahmeen madadaalo kaliya dadna ereyga riwaayad laftiisa waxay u qaateenba qofka ka qosliya madal la igu yimaado dadka lagu qoslay lagu kala dhaqaaqo dabeedna ama waxaan micno badan lahayn inaga doorkeena ugu weyn wuxuu ahaa gabayga iyo maansada soo kale sheekadan la yiraahdo sheeko faneeda oo aynaan aqoonteeda lahayn ayaa iyaduna kamida doorarka ugu waaweyn dunida kule markaynu dunida eegayno waxa la yiraahdaa poetry and prose baa la isku yiraahdaa marka hore waa tixda iyo tiraabta waxaynu naqaano qaybta riwaayadaha oo drama la yiraahdaa waxa kamid tahay qaybaha ugu miisaanka weyn qaybta loo yaqaano fiction storieska sheekooyinka fictionka ahayna waxa la yiraahdaa meesha lagu riyoodo riyada ma taqaanaan ninka saynisyahanka niman baa u riyooda la yiraahdo science fiction dad qora waa jira oo qora sheekooyinka sayniska ah ee laakiin mala awaalka ah waa riyoodaan waxa ku riyoodaan duni kale oo khayaal ah dad kale oo khayaal ah nolol kale oo khayaal ah saynisyahanku wuxuu isku dayaa inuu suurto geliyo waxa lagu riyooday ninkan markaa wuu qoraa wuxuu qorayaa book ka hadlaya nolosha sayniska ah ee technology ku salaysan ee dadku duulayaan ee ay baalasha leeyihiin ee caalamka xilliga lagu jiro ka duwan ninka saynisyahanka markaa taas uu siradaa suurto gelisid waxa kale oo kamid ah doorka ay leedahay
waa doorkii guud baa isku darayaa sarbeebta ama sarbeebida tabashooyinka laga sarrigto in hadalka tiraabta lagu sheego waxaa jira hadalka tiraabta ah hadalku waa tix iyo tiraab hadalku waa tix iyo tiraab poetry and prose labada marka la kala saaro tix iyo tiraab loo kala saaro tixdu waa hadalka habdhaca iyo hal raaca iyo dheelitir kale halka hadalka la yiraahdo tix tiraabtu oo kay hadalka aynu soo sheegnay farshaxan kale ee suugaanta ka midka tiraabtu hadalka isku daadsan maalinta aynu iskaga hadalay maaragtaa jajaban naxwa ahaan tahay waa tiraab laakiin tiraab sugan maaha hadalka tiraabta laftiisu waa hadalka si quruxda badan la nuxurahan la dhaadhaaday marka sarbeebta markaynu ka hadlayno gabayga waxa xasuusataan ardayba u badantiin marka wajiyadiina eegee waxa jira hadal ninka gabayaaga ahi ama qofku markuu dabca inuu sheego hadduu tix ku sheego aanu ku xaaloobaynin hadduu tiraab ku sheego laakiin uu ku xaaloobayo tusaale ahaan ninkii la odhan jiray gabaygii caanka ah ee ku soo dhigatayna faytin iyo saahid waa wada garanaysaan saahid wuxuu lahaa inay yar buu guursaday oo aad u da'yar oo aan qabaankii reernimo baranin markii uu guursaday waxoogaa waa curatayoo siday qabaankeedii iyo siday wax u maamulaysay iyo siday nadaafadeediibuu ka yaraa aad u saluugay nin inanta adeero ahaayoo faytin la odhan jiray bay shax wada cayaareen faytin wuxuu damcay inuu dhaliisha gurigiisa ka jirta u sheego weliba wuxuu raaciyay warnimood yartii ay siiseen reer galba ma aha inay ii beddeshaan baa fiican dee gabadhni guursaday oo layidhi ii beddelana dhaqanka soomaalida iyo dadka kaleba ah kuma jirto gabay buu tiriyey hadduu intan hadal ku odhan lahaa xaal kama kacda ah ayuu ninkaasi xambaaran lahaa gamaankiina badan faytirow gobolba waa cayne gamaankaa markaa durxulka hadalka la yidhahdaa waxa weeye hadal cid kale loo sii maro isagoo ninku inaan ka hadlayaabuu wuxuu ka hadlayaa maaragtaa sac iyo weyshu ma isku sixir baa dukaayo saliidii saybita gadaa sac iyo weyshu ma isku sixir baayo sac iyo weyl buu ka sheekaynaya laakiin inan iyabaa laga yaabaa inuu ka sheekaynayo gabadh kale sac iyo weyshu ma isku ninkaasi faytin wuxuu sameeyey gamaankiina badan faytinoo gobolba waa cayna qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalane gabax lagu shakaaliyo sangihii gaabi orodkiye gacalnimo haddaad naga rabtaan go'aha noo doorsha markuu sidaa leeyahay waxaa la yidhaahdaa waa qaybta ugu quruxda badan maansadaa iska leh hadalka tiraabtahi ma laha hadal laga xishooday in la dhaho oo qofkaasina uu tabasho ka qabo waa lagu sheegtaa waa door ay maansadu leedahay waxay leedahay baraarujinta iyo kubcinta wacyiga dadweynaha ay leedahay qaybta waxa aad ugu muhiimsan inagu aad waxaan u naqaanaa markaynu ka hadlayno gabayada waliba Soomaalidu dagaalkay aad ugu fiicantay markay qaybaha dagaalka joogto ay aad qaybta ugu dhag taagantay maansada Soomaalida oo ah tadoorka ugu weyn ku leh wacyiga bulshadeena xilliga ay ugu wacyi gelinta badan tahay ama ay doorka ugu weyn qaadataay waa xilliga dagaaladii waxa maqashay ilaa dagaalkii 77kii xilligii xorriyadoonka silsiladii deelay maasadii guba wad'uun ilaa hadda dagaal la socdaan waxa ugu dardarta koobaad ka qaata ama qalabka Soomaalidu u isticmaasho dardargelinta iyo wacyigelinta iyo tiraalaynta dagaalka waa maansada waxa la yiraahdaa boqolaal goor waxa badan maansada cid lagu dagaal galiyay baa ka badan maansada cid lagu nabdeeyay boqolaal goor bay ka badantay waxa arkaysaa inay meel taban bulshada ugu jirto dagaalku waa meel taban weeye inta badan waliba meelaha badankooda waxa jirta dagaal mararka qaar loo baahan yahay oo 77kii oo kale waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay kaga adkaatay qoladii Itoobiyaanka ahayd suugaanta oo waxa isku wacyi gelisay suugaanta mid walba markuu dhageysto ayuu boqorka horta ka qaatay
doorkaasa ugu weyn Soomaalida gabaygu ugu jira markaa waxa kale oo jira doorka madadaalada iyo jacaylka oo imka aad inagu soo bato heesaha hadda ilaa iyo 1940yadii aad u socday waxa kale oo jira guud ahaan wacyiga bulshada waa lagu dhisaa oo waxbarashada kamida oo horumarka kamida oo qiimaha nabadda kamida ee wargelinta kamida in la isku wargeliyo in la isugu waayo sheegta kamida saynu sheegno jacaylka dhalinyaradu isugu sheegato dardaaranka kamida laakiin qaybta ugu badan ee uu naqaana ama marka qiimeeyaan aanu arkeen intay qaybta ugu weyn ee Soomaalidu wacyigeedu wacyi ahaan markaynu ka hadlayno wax weeye waxaan maqlayaa hadal badan baa jira aynu isdhageysano halkaas oo laga sheekanayaa meesha ugu weyn arkay waxa weeye marka wacyiga waxa la yiraahdaa shayga marka dadka loo sheego wali miyaad aragteen hees guurka dhiri gelinayso dhalinyaradii markay soo baxday wada guursatay ma aragteen guurka dhiri gelinaysa oo markii heesa guurka laga tiriyay lagu wada guursaday meena arag Soomaha laakiin hadii meel laba geel jiro oo hawd geel la jooga qoriska ridaano laba gabay la isku tiriyo boqolaal baa isku dhimanaya dama garateen wacyiga ugu weyn ee bedeshay waa kaas markaa bal waxaanu soo qaadaynaa gabay tiriyay ninkii loo jiray Cabdigahayr wuxuu yiri warka xalay curaagtii tolkay ceelka laga keenay ee sida cilmiga ee baahay lagu cibaadaystay buu ku leeyahay waa in dad la soo laayay anigu ciyaar baan isrogay Umar kaanahay anigoo da'da jooga baan kacay oo ciyaaray xilliga waxa loo sheegay niman reerkiisa ah inay niman kale Soomaalida kamid ah soo dagaaleen la soo dagaalameen ay soo arkayeen guul ka keeneen oo niman la soo laayay marka waa ka cibaadada ka dhigay doorkaan waxaan qabaa in kulli waa door aad u weyn oo cid kale hadaan la dagaalameyno isku baraarujin karro laakiin doorka doorarka waa weyn ee maasud inoo yeelatay suugaantu waa qurux badnaan lahayd doorka doorarka waa weyn inay inoo yeelataa aad u qurux badnaan lahayd oo nolosheena kale wax ka bedeshay waxaan erey ku darayaa waxa jira wax la yiraahdo oo inuu gali doonaa laba qodob doorka maasada tusaale aan soo qaadanay intaan qodobka kale u galin waxa la yiraahdaa waa meesha lagu hooga tusaaleeyo dadweynaha hooga tusaalaha ma taqaanaan waa in dhacdada inta lagu dhex geeyo dabeetana adigu marka lagaaga sheekeeyo dhacdadaas si u dhacday dabeetana aad wax ku qaadato ninkii la oran jiray Cabdigahayr ay waarikii nimanka ka hadlaynay ay islaantiisi muriyada haba weydiisatay Cabdigahayr waa barlaawi waxba ma haysto xoolo badan la muu haysan la sheego iyadoo waxay weydiisatay muriyada haba kuma oranin dawlad muriyada haba ma hayo wadiga arkay oo calaacal muu saarine wuxuu isri talosaad wax u tustaa gabay buu tiriyay leeyahay Umar Qarooni aad qaala bixiwa adiga ba qalab doonayo qoosay Faransiis Ingiriis ba laga qaado dhulku qaybta u lahaa diyaaraduhu waa qaylado qoorta maraya qarka wuxuu la meermeerayaa waa nin soo qaxay Ingiriiski dalka marka maartay gumaysanayay baa wuxuu ka dhigayaa miskiin yaro in dalkiisa inta laga soo qaaday qaxoontiyo ila jooga ma qadayo ruushka sidii la isu qoonsaday waqwadii waa weynay dunida ay maqli jirtay adiga ba qalab doonaya qoosay Faransiis ninkii maanta qaybtii ku helay qarafna waa maad buu ku gabagabay marka haddaad kabriid yar hesho dadka qaar waxay yiraahdaan meel la boobay buu kabriid ka soo qaatay laakiin sida gabigu waa ka dhumuc weyn haddaad intaa hesho wuu hoga tusaaleeyay hadraawba inaan la oran jiray ubaxay indhayaa badan kugu soo uriyeen kuwa eegba batay maxay ka uriyeen hoga tusaaleyntu waa taas ina yar buu arkay oo inamadu xilligii ay joogeen heer ay jabhada ahaayeen nimankii jabhada ahaay halka joogay adeero intii mid farta ugu yeedhan adeero ordo baakir sigaar halka iga soo iibi adeero shaha koobka ay keen inantiba si adeero waxa ay keen la lahaabay kortayo kacdayo heega muqdheer bay noqotayo
subxaanaka yaa cadiim nimankii meesha fadhiyey jiray inantii oran jiray adeero farta ugu yeedhi ku dirsan jiray oo inantii yareed ka daba dhereerinayay buu arkay oo mid waliba lacag intuu soo saaro oo hablaayo lacagtan qaado ma hablaayo markaa dabeetana waxaa arkay wuxuu isiri wallahi inantaa yar waa agoon waana yaroo miskiinada xilligaa ay wuxuu dirsanayay way kabalaayd waxay xidhatoo naf la maysidanin nin yidhaahda adeerkaba hoo xidho adeerkaan intii aabbaha baan kuu gelayaa adeer waxaanaad u baahantahay baahidaada hoo ku darso muu ku jirin maanta laakiin markii ay heerkaas soo gaadhay ayay iyagii ku soo qamaameen markaa haddana wuxuu yidhahdaa wuu ka sheekeeyaa subaxii dhowr malaa xilli aad u saacado aad u badanoo weliba yidhi waagaa igu baryay buu la joogay inantiisu uu la telinayay maanso aad u qurux badan buu tiriyey maansihiisa meelaha tusaalaha waxaa ka mida markaa sidii inanta uu gacanta qabtay oo kaluu kaxeeyeyoo wuxuu tusay habla waxaanu nimankanoo kale san lagu yeedhyadhayoo wanaagga laga badiyeyoo markii dambe jar looga tallaabsadayoo dabeetana intay halligmeen dabeetana balaayo ku dhacday urar yeeshay ilmihii ay dhaleenna daaqadda ka tuuray intay qaadeenay bac ku duubeen dixda dhigay dixda ay ku cunayso ayadoo cunaysa daawanaysa bal albaabkan garaac mulbaa huruday ilmahay dihataa xalay ayadu cuntay buu leeyahay markaa waa hoga tusaalayn qofka saa marka loola hadlo ee looga sheekeeyo dhacdooyinka waxaan soo ulgabaa ma urraa ma arraa ma asma wuxuu sheegayaa xataa tusaalayaal badan buu wuxuu ka bixinayaa na waxaan kugu soo hadlaya ee kuu yeedhanayaa maxay yihiin marka wuxuu ku gabagabaynayaa adigaaba yaqaan gabdho ooda rogtee bal albaabkan garaacu mulbaa hurudee wuxuu wax ku oogan xanuun aamanuun gubayo umulbaa shidayso amuurii dhacay bay la asqaysantahoo ilmahay dahataa xalay ayadu cunto naxariista ilaynaan shaxaa dhaliye haddii uurka habreed astaan gaara lahaa hooyadii amreed arxan goysay markuu xeerilow ku dhaco ubadkii magantaa haadku eeganaya eerashoy bi'i waa ii dhexdeeda haddaan ubacdeedu qubnayn sooma soo oloshayn aaway beerdabicii aabi baa lumiyee arladeeda miyaa naas irmaani jiraa buu leeyay markaa hooyadu inay naxariis yeelato oo ay kalgacal ilmaheeda u qaado anshaxaa dhaliya marka caadi ilmahay u dhashay ay dhasho ayay yeelanaysaa laakiin ta aan si wanaagsan ku dhalin waa taa ku soo tuurtay ayada ku daawanaysa saasuu tusaalaynaya markaa bal waxaynu eegi doonnaa waa doorka maansadu leedahay inaad qof kasta noloshiisa ku toosin karto maansaasu inantaasoo qura lama hadlayso inan kasta oo soomaaliyada ama inan kasta oo dunida ku nool bay la hadlaysaa lama hadlayso inantaa yaroo keliya waxay la hadlaysaa hablahay la hadlaysaa bal waxaynu eegaynaa waxaa la yidhaahdo riwaayadda masraxiyaddu goorma inoo timi xagga inooga timi yaa lahaan jiray masraxiyadda dadka ugu fog ee lagaga sheekeeyey taariikhdooda waa griiga waxaa la yidhaahdaa muddo aada u fog oo ka horraysay ilaa xilligii ciise hortii ayay qolada griigu riwaayadaha lahaan jireen waxay u ahaan jirtay markaa qalab diimeed oo diimaha iyo maarata madalaha noocaas iyo barigii hore laakiin markii dambe waa la casriyeeyey wax bulshada lagu wacyigeliyaa waa laga dhigaa wacyigelinta bulshada ayaa laga dhigay markaa riwaayaddu waa qaab masraxiyadeed oo loo tabiyo waxa loo yaqaano dhacdooyinka nolosha ka jira iyadoo la jilayo jiritaan baa lagu tabiyaa waa in halkan la yimaado fagaaro la yimaado dadka hortooda lala yimaado agtara loo sameeyo jirayaa loo yeelo dabeetana la matalo dhacdadii nolosha ka jirtay ee tabnayd si loo sheego tognaanteeda tii tognaydna si loo dhiirigeliyo tognaanteeda baa la keenaa masraxa waxaa la yidhahdaa waa meesha ugu weyn ee bulshada laga hago dowladuhu markay doonayaan inay dadka waddo mariyaan waxaa jirta dadku haddii dowladdu doonayso inay falasafad ay wadato ummadda intay meel ka dhaqaajiso meel ay u dhaqaajiso maaha qof intuu iska yimaado kursiga iska fadhiyo dabeetana dadka way tabaaqiyo oo warwareejiyo oo iyadoo nafbax la yahay
dabeetana la yidhahdo waraan eerow naga dhaqaaq maaha laakiin ninka saamaynta leh ummadda hogaamiyaha la yidhahdo hogaamiye saamaynta leh ummadda si uu u kaxeeyo oo meel intuu ka soo saaro meel madow iftiinka ugu saarayo horumarka qalabka ugu weyn loo adeegsaday ka mid yihiin wacyigooda si loo bedeliyaa fikirkooda si loo bedelo riwaayadu ayay ka mid yihiin tusaale ahaan innaga Soomaalida laba riwaayadood oo la dhowriyo I think 70 80 meelaha la dhigay laba riwaayadood mid cilmi iyo caada la yiraahdaa midna aw bustaala la yiraahdaa aw bustaale waxay ka hadlaysaa dadkii siyaarin jiray qabriyada iyo qubuuraha iyo sheekhabalow islaanta dhali wada dhagaxa lagu fadhiisan jiray habar dhali wada aleela kuwa alata Soomaaliland maqal ayay wacyi gelinaysaa bulshada markii riwaayada la daawaday wadaadadii waxay ka hadlayeen oo dhan iyada ka saameyn badatay qof waliba waxa la jilay barbilow sidoo barbilow ilaa iyo bardhamaad nuxurka sheekadu wuxuu yahay baa la jilay cilmiga caada sidoo kale waxa ka hadlaysaa habar fuuxistaaho qiiqshtato oo jinniya la shaqaysato oo jinkii badda kii dhulka kii cirka kii bariga balaayo u yeeratay inay daawateen baa laga yaabaa dabeetana waxaas oo jiraba waxay u adeegsataa inuu de khiyaal yahay haba laga yaabaa inay dadka ku kasbato islaanta masayrsan baa u timaada odaygiiba halkan maray bal wax ku akhri dabeetana waxaas ay u akhridaa jinkii badda u kaalay kii kale u kaalayo waxba isugu tartaayo waxaas la wada qaataa markaa islaamihii oo buursita kama dambaysta filimka imaanay riwaayada imaanaya oo ka aayo waay wixii ay kula tarisay oo qaarninkii ay tiri jacayl maarta islaam kaliya meelaha soo eegaya guriga u fadhiistay oo shaqayn waahi oo reer waliba eedaaday ayaa loo imanaya tabeedna wacyiga bulshada iyo islaamihii nooca ah in lagu xidhnaado dadkii daawaday qof waliba isagoo ka aamin baxay buu ka baxay riwaayadii sheeka fareed waxa jirta sheeka la yiraahdo ayaan daran ina jiro asli la yiraahdo ku saabsan tahay asli waa inay yaro qurux badan oo waxbarashada jecel oo qiimo badan oo reer wanaagsan ka dhalatay oo u baxa oo la daawado oo la koolkooliyo oo filkeed ka mudhay saaxiibad xun bay yeelanaysaa markaa saaxiibadeedii waxay bahaadaan uga talaabsanaysaa waxa la yiraahdaa waa sheeko dheeroodin kama sheekayn karo inan kasta oo xilligaa joogtay oo akhrisatay waxa markay soo baxday waxa la geeyay jaamacadihii iyo dugsiyadii iyo inan kasta oo akhrisatay way ilmaysay sababtu tahay ma taqaanaa sababta keenaysa waa aragnimo oo marka leeyahay waxay korisaa wacyiga bulshada waxa qofka sheekooyinka faneedka akhriya lama dago riwaayadaha ku soo noqoynaa in la oran jiray Martin Islin oo kamid ahaa ragga loo tiriyo foolaadka masraxiyada ayaa bal wuxuu ku sheegayaa masraxiyadu waa nooca ugu kakan suugaanta taas oo awooda in la soo baxta afufa xaaladaha iyo xiriirada aadamaha riwaayadaha waxa la sameeyaa ninkii Soomaali marka la inooga soo sheekeeyo ninkii Soomaali la oran jiray eedin dhalayde marka laga soo sheekeeyo taariikhdiisa ayad waxa riwaayad laga jilayaa ninkii Soomaali oo dhalanaya halku ku dheelanayay hooyadiisa u eekayd dharkii lagu qabtay umulisadii ka dhalisay sida waxa kale Aristotle ninkii la oran jiray oo kamid ah ragga ugu horeeyay ee riwaayad qeexa wuxuu leeyahay masraxiyada wuxuu ku qeexay matalaada iyo in la muujiyo xaaladaha bulshada ka jira hadeeg xaalad bulshada ka jirta ayaa la matalayaa oo la muujinayaa ereygu drama ayuu loo micneeyahay oo wanagii sheegnay Soomaalida iyo masraxiyada Soomaalida masraxiyadu waxay u timi 40-yadii 1940-yadii waxay timi iskuulada goobaha waxbarashada ka bilaabantay cidii ugu horeysay jiri jirtay waxay ahayd macallimiinta iyo ardayda ayaa jiri jirtay waxa la yiraahdaa marka
ruwaayadihii ugu horreeyey koob iyo kontonkii ayaa cabdilaahi qarshe iyo dabadda uga soo saareen iskuulka oo ay magaalada keeneen oo la jira koob iyo kontonkii markay magaalada timi waa la jilay abwaanadii Soomaalida ee gacanta u gashay iyaguna akirnaan kale geliyeen waxa weeye waxa ugu weyn ee riwaayadda laga rabaa waxa weeye in bulshada lagu wacyi geliyo oo wax lagu sheego xilligii kacaanka markaa oo ay aad kor u kacday waa baqeen nimankii gabayaaga ahaa waa baqeen taariikhda xorriye iyo riwaayadaha dad dhageysato riwaayado badan waxa alla waxay ka hadlayaan qaar baa cilmi farq lagu saleeyay qaar baa gabayo miidhan baa dabada loo geliyay oo halkii ay ka ahayd in hadal la caadi ah oo badan ay ku jiri lahaayeen qaar baa waxa macnahoodii iyo ujeedadoodii baa la fogeeyay si ay cidiba u garanin saa lagu oranayaa riwaayadda inta halka la geeyo magaalo hablaayo lagu fahmay Soomaalida maqal inay saa noqotana ma ahayn waxay ahayd in ujeedada ay riwaayaddu sida markiiba dadku inta helaan wixii looga baahnaa in lagu wacyi geliyo ay qabsadaan oo dabeetana ay wax ka bedeli karto sir riwaayadaha idin sheegay caadiga ah ee tooska ah ee aan waxba madow ku jirin masraxiyada iyo way kala duwan yihiin sheekada la yiraahdo sheeka faneedu inaga way ugu cusubtay ninkii la oran jiray sheekadii Maxamed Daahir Afrax ninkii la oran jiray Afrax ayaa ugu horeeyay nin Soomaali oo sheeka faneed af Soomaali ku qoran tii labaad soo raacday waxay ahaayeen aanadii nageeyay iyo Ibrahim Hawd iyaga laftooda wax badan inay ka dhaman yihiin waa maaquul laakiin waa meel u baahan in iyada laftooda laga shaqeeyo oo wacyiga bulshada si loo koriyo wax loogu sheego dhaliilaha loogu sheego dhibaatada loogu sheego tusaaleer baa idin siinaya bal qisada idin ka sheekeynaya horta intaan qisada ka sheekeyn laba baan ka horeysiinaya waxa la yiraahdaa riwaayadu waxa la sheeka faneedu waa meesha lagula falgalo dareenada nafsiga ah ee dadka kale qof marka inta ku soo fadhiisto waxa lagu dareemayay iyo noloshiisa iyo sidoo halkan ku soo gaaray iyo caqabadii ka hor yimi iyo xaaladiisa iyo suuga baxay iyo xogta noocaas oo dhammaystiran ku siinay mu jira waa ma jiro halkaasi inta qof halka fadhiyo soo dhex gasho salahan in yar baa doonaysan aad ka hadasho waxyaalaha sheeka faneedka lagu qoro waxa kamid ah saddex qaybood baa loo qoraa guud ahaan marka laga hadlayo matalaada qofka qoraaga sidoo sameynaya baan ka hadlayaa waa inuu qofka uu ka hadlayo isagoo iska dhigo oo ku raado aniga oo ka bilaabo dabeetana sheekada waxaan ahaa arday waxaan joogay meel hablaayo waxaan ahaa sida ama inuu laba qof u ka sheekeeyo isagoo yiraahdo waxay ahaayeen arday iyo macallin waxaan ka dhaxaysay xiriir noocaas iyo inuu qofka laftiisa soo dhex galo inuu qofka laftiisa waxa dhacday markaa mid baa jirta uu soo dhex galo Ali wuxuu dhashay Ali baa sheekan bilaabayaa ka soo qaad Ali habeenkii uu dhashay ay hooyadii dhimatay waa shajir maanta wuxuu isweydiiyaa waxa ay micnaheedu yahay ereyga hooyo markuu maqlo ereyga hooyo wuxuu ku micneeyo ma yaqaano sababtoo ah weligii dareenka hooyanimada ma helin dhab laguma qaban naas lama nuujin dhaxan gool lagama hubin lama looma haysin looma maaweelin dhib soo gaadhay dhabta lagagama gelin
ama dhuunta lagama gelin cali wuxuu ehel u noqday oo la noolaaday duruufta aan cid alle cid ka dabooshay jirin hoygiisa koowaad wuxuu noqday dixda wuxuu la seexdaa dad duruufta uga soo horeeyay habeenna ma heli qof u naxariista roobab kulayle daadad gaajo haraad inta bilaadan nabcaysto intuba isaga waa la jaar xataa ma helin cid uga naxariisata maalinna oo ku tiraahdaa maxaad dareemaysaa cid ku tiraahdaa xitaa ma arkin maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo dul taagay masaajid wuu dhageysanayaa wuxuu isweydiinayaa wadaad buu maqlayaa wuxuu maqlayaa cadaab iyo janno wuxuu isweydiinayaa cadaabi waa maxay wuu fikirayaa cadaabta cadaabi waa noloshaadoo kale ayuu iska leeyahay kaska duunka hoose haddana wuxuu isweydiinayaa janno wuxuu ku micnaysanayaa nolosha dadka oo dhammi markuu isa soo ag istaago sida waraabaha laga eriyo hudheelka hadduu soo galo isada wax ka cun waa laga eriyaa bacadlaha hadduu soo galo waa laga eriyaa meel kastuu isada halkanaa qurux badanoo halkaaga dhaanta waa laga eriyaa wuxuu dhegaysanayaa khudbaddii qof wanaagsan iyo qof xun buu maqlaya oo laga sheekaynayo wanaag iyo xumaan wanaag muxuu ku haastaysan yahay isagu weligii lama odhan waxaas waa xun yihiin waxaas noo wanaagsan xataa wanaag iyo xumaan ma kala yaqaano waayo lama barin waxaasaa xun waxaasaa wanaagsan lama barin xumaan iyo wanaag laakiin caqligiisu wuxuu siinayaa inay yihiin dhibaatada uu la nool yahay iyo taa jannada oo kale iyo cadaabta oo kale wuxuu wanaagga ku xasuusanayaa cibaado isagoo roob helay dhaxamoonaya feedha qaawan ayay siisay laba shay oo hudheedha wuu isku asturay cibaado wuxuu qaadanayaa inay tahay wanaagga ninka masaajidka ka wacdiyaya dadka oo uu marka dambe masaajidka soo geli doono ayaa bacla haysta baclihiisa maalinta intaanay cibaadada dharka siinin waa ninkii uu is hortaagay ee intuu dhirbaaxay isagoo oo ilmaynaya oo qarqaraya inta dhirbaaxa loo raaciyay yidhi ka hor dhaqaaq halkaygan ee dabeetana ka soo cararay qarqaryadii cibaado kula hor dhacay cibaadada dharka u xidhay marka sheekada waan iska gabagabaynaya waan iska gola ka fuulaya tusaale ahaan waxaan ka wadaa ilmaha yaran hadda ka sheekaynayo dhan baa laga alifi karaa dabeetana ilmaha yari wuxuu dareemayo dadkan baa xun u la nool yahay tusaalahaan ma isagaa xun ma isagaa u dhashay inuu nolosha cadow ku yahay ma dadku lada soo noolaaday baa cadow ku ah qofkaa yar dareenkiisa hadhowta waxaa laga yaabaa markaad ilmo yaroo noociya aragto oo adigoo bakhaar ama meherad cod haysta ama xaragoonaya duruufi ka muuqato sheeko noocaasoo qisa boqol waxaa laga alifi karaa kun bog buu kun maaragtaa beija baa laga alifi karaya markaad akhrisato waxaad dareemaysaa ilmaha yar xaaladiisii dabeetana dubaaqii ku gilgilmay ayaa dib ku gilgilinayo waxaad la noqonaysaa la dareen baad noqonaysaa naxariistaa lagu bartaa markaa dareennada dadkaa lagu bartaa waxaa kaloo lagu bartaa waa aragnimada nolosha waayo arag baad noqonaysaa lama dago miskiin ma aha ma damana qofka akhristaa noloshii wacyigeeda iyo xaaladaha nafsaaniga oo dhan buu si wacan la falgalaa sababtoo ay tahay duruufo aan lagaga hadal sida caadiga ah oo laakiin nolosha ka jira ayaa marka mala awaalka la isla tago lagu burqadaa waa mahadsantiin